dabcan waxaa laga yaabaa inaad maqasheen shakhsiyaad sheeganaya taariikhdii daraawiishta ama dad yidhi annaga ayaa daraawiish aasaasnay. isla shakhsiyaadkaas sidaas si leeg waxa ay sameeyeen iyagoo leh annaga ayaa daraawiish jebinay, walow labadaas ayna meel wada gelin. haddana bal waxaan isnay bal si dhexdhexaada magaranaysa ummadda ciddii aan ogeyn bal aad ugu magaranaysa bayaanisaan bal aad idinkoo isbarbardhigaya taariikh tus oo taabsiya oo magaranaysa markaan xogihii fara badan soo ururinay balaanu isnidhi bal ummadda magaranaysa yaan la jaahi weerarinay bal xaqiiqada u taabta, walow dad badan ay og yihiin deegaanada daraawiishta ay ahayd. bal anagoo xooga saarana yaa daraawiishtii dana sayaa raacsanaa, ayaa gumaystaa la shaqaynayay, sayaa kasoo horjeeday, gumaystuu yuu la dagaalsanaa, deegaanadee uu ku duulayay, xaguusi kaga soo duulayay, deegaanadee laga taageerayay gumaystaha, sidoo kale daraawiishta iyaga xagee laga taageerayay. bal insha allah bal in yar markaa aynu dul marno. dabcan markaad eegto bal isbarbardhigto deegaamada, haddaan kaga bilaabo bal deegaamada dadkii taageersanaa ciidamadoodii deegaamadoodii xaggay joogeen, dadkii ingiriiska magaranaysa taageersanaa maxaa lagu sameeyey, iyaga laftirkoodi maxayse ka faa'iideen. wal markaad eegto magaalo markaad u dul istaagto, dabcan halkan waxa weeye magaalada burco oo markaa taliskii ingiriiska ay deganaayeen, aqalkii ay deganaayeen saraakiisha iyo madaxda ingiriiska ay markaa u shaqaynaysay gumaystihii boqortooyada ingiriiska. halkan waxa weeye ay yar oo guriga hortaagan. sidaas si leeg markaad eegto magaalooyinka kale ay ka mid tahay magaalada ay sheegay burco, halkan midigna waxa weeye magaalada sheekh oo askari magaranaysa ay aan filayo inuu Soomaali yahay iyo inuu Afrikaan yahay aan kala garanayn, oo markaa isna calankii hoos taagan ay sheegay magaalada sheekh ee ingiriiska. dabcan sidaas si leeg markaa deegaanka kale eegto Hargeysa waxa weeye loogadii dowladda ingiriiska ama British Protectorate Government oo markaa Somaliland joogtay oo iyaduna dhismihii Hargeysa dul saaran. dabcan loogada way jirtaa iyadoo magaranaysa electroniga oo magaranaysa loogadii oo sawiran. haddaad markaa iyadii kusoo dulqabto loogada iyo labada loogo isdul saaro waxa weeye dabcan loogadii dowladda sheegay ingiriiska markaa dhulka gumaysanaysay, sidoo kale iyo loogadii markaa dhismaha Hargeysa ku dul taalay oo labadaba ay isleeyihiin maajgareynayaan. dabcan taasuna waxay Hargeysa sidaas si leeg haddaan uga sii gudbo sheegay magaalooyinka kale. halkan waxa weeye iyaduna burco oo markaa saldhiggii militariga ingiriiska markaa iyaduna nin Soomaaliyeed uu markaa saarayo calankii ingiriiska magaalada burco. sidaas si leeg haddaad eegto magaranaysa aad u gudubto askartii ama deegaanadii askarta laga taageerayay markaan ka gudubno deegaanada. dabcan halkan waxa weeye magaalada sheekh waa dhismo sii burburay oo markaa dowladda ingiriisku ay lahayd oo markaa aasaartiisii ay kasii muuqato magaalada sheekh ama gobolada waqooyi galbeed ee Soomaaliya. sidaas si leeg haddaynu eegno magaranaysa caaqiladii ama wufuudii dadkii horkacayay sheegay tanuna waxa weeye Seylac, magaalada Seylac oo markaa isna ingiriisku haystay. haddaynu markaa eegno dadkii taageerayay ama magaranaysa u ololeynayay ingiriiska anaan magaciisa sheegayn, dabcan waa dadkii ama beelihii raacsanaa ingiriiska oo markaa caaqiladoodii oo markaa iyaguna horkacaya ingiriiska. dabcan ciidamadii iyaga loo qoray oo markaa loo tababarayay ay ka mid ahaayeen kuwana madaafiicda lagu tababarayo, iyo sidoo kale ciidamadan kale isna marya calasta oo markaa ingiriisku iyagana u tababarayo si uga horgeeyo daraawiishta. dabcan markaa waynu garan karnaa deegaanada iyo dadka taageeraya markaa ay sheegay daraawiishta labadaba markaynu eegno. sidoo kale markaad eegto magaalada waxaynu soo aragnay Hargeysa iyo burco iyo sheekh. haddaynu markaa tagno magaalada xeebeed ee berbera waxaad arkaysaa taliskii weynaa ee berbera ee laga difaaci jiray magaalada berbera ingiriiska, dabcan iyo dad Soomaaliyeed oo askar markaa la qorayo oo jooga. sidaas si lamida ciidamadii markaa berbera joogay ee Soomaalida ee markaa iyagana la qorayay oo markaa ingiriisku uu dariil u sameynayo, hubna siiyey markaa tababarayo si uu magaranaysa golof colaadeed ugu kiciyo daraawiishta iyo gobolada Sool iyo Sanaag iyo Nugaal iyo goboladii kale ay markaa daraawiishtu ka talinaysay ee waqooyi ka deganayd. halkan waxa weeye sarkaalkii ingiriiska markaa tababarayay ciidanka iyo saraakiishii kale iyaguna markaa daba jooga. dabcan dadkan waa dad Soomaaliyeed oo kasoo jeeday magaalada berbera. halkan waxa weeye isla berbera dadkii oo markaa geeloodii ka iibiyey gumaystaha oo markaa gumaystuun uu ku rareeyo saanad military, saanadaasoo lagu daabulayo amba lagu sii wado xagga iyo gobolada daraawiish degto si loogula dagaalamo. dabcan halkan waa sarkaalkii ingiriiska oo markaa dadkiina dhex jooga oo markaa u kala sheegaya instruction uu sameynaya. halkan waa dekadii berbera oo markaa ingiriisku cashuuran jiray isaguna haysto uu ku habsaday oo markaa occupationka amba magaranaysa gumaysiga ku jirta
boqortooyada ingiriiska. dabcan halkaas waxay aan kusoo dulmarnay taariikh yaro kooban oo gobolka magaalada saaxil, hargeysa, sheegay berbera, burco iyo deegaamada la xidhiidha. sidoo kale haddaan burco usoo dego, iyada laftirkeeda waxaa laga samaystay saldhig military markii daraawiishta laga soo kiciyey dhinaca iyo burco, oo markaa ingiriisku uu ka samaystay, calankiisiina ka taagay. halkan waa talis oo ingiriisku ka samaystay. sidoo kale halkan waa dad burco lagu tababarayo oo markaa marya calas oo ingiriisku qortay si uu magaranayay daraawiishta ugu jabiyo. ayaan daro dadkan ingiriisku sida uu sheegay waxba way ka caawin waayeen amba way u tari waayeen inay daraawiish jabiyaan. ingiriisku markaa wuxuu dalbaday hindi fara badan iyo South African iyo Sudanese, Kenyan ilaa iyo Malawi askar laga keenay. insha Allah idinkana aan mar kale idin tusi doono. taas waxay deegaanadii magaranaysa ingiriiska laga taageeriyay, dadkii taageeriyay, askartii taageerisay. sidoo kale maxaa ka dhacay markaa gobolada waqooyi amba goboladii laga taageersanaa waqooyi ee dowladda ingiriiska? dabcan adoonsi dahsoon waxaan ugu yeedhay amba la dhaho adoonsiga dahsoon. halkan waxa weeye magaalada magaranaysa sheegay Bullaxaar la dhaho, oo magaalada xeebta magaalada Bullaxaar oo berbere ka xigta dhinaca galbeedka. oo dabcan waxay leeyihiin servants, waxaa wada islaanta cadaanka, waxaa wada servants amba waxaa loo yiri adoomo amba u adeegayaal ayaa markabka kasoo dejinaya, kadibna dekada Bullaxaar amba dhulka Bullaxaar usoo dejinaya, iyadoo naag cadaan oo magaranaysa kasoo degaysa badda oo markaa beriga imaanaysa, oo rag Soomaaliyeed ay dekada ku sidaan. dabcan maxaa kaloo dhacay halkan waxa weeye iyaduna waxa weeye magaalada berbera oo iyaduna nin cadaana asalkiisu inuu Mareykan yahay baan filayaa, oo markaa berbera iyadana dad Soomaaliyeed ay markaa madaxa ku sidaan. waxaa iyaduna jirtay dadka laga qaadi jiray, madaxa laga qaadi jiray saraakiisha berbereenta laga qaado shiikh la geyn jiray xilliga kulaylaha, iyagoo magaranaysa ay dadku u kala nasan jireen, oo markaa ay naxash oo kale amba kursigan oo kale ay ku qaadayaan. sidaas si leeg iyadana halkan waxaad ku arkaysaan magaalada Hargeysa iyaduna markaa caruur yar calankii loo dhiibay si loogu soo dhaweeyo Duke of Gloucester iyo islaantiisa oo markaa Hargeysa yimi 1958. dabcan inta kaliya maaha, sidoo kale adoonsigu was ka badnaa ilaahay amarkii. halkan waxa weeye ingiriiska dadka ladan oo ka imaanaya ingiriiska ayaa waxay ka sameyn jireen gobolada waqooyi ugaarsi, oo markaa ay dili jireen libaaxyada, shabeellada, harimcadada amba wixii la halmaala. halkaas oo markaa ay hargaha kala bixi jireen, sidaad aragtaan halkan hargaha yaala, oo markaa dad Soomaaliyeed ay u xamaalayaan saanada amba waxay ku noolaan lahaayeen labada bilood ay ugaarsiga tageen oo ay buuraha ku jiraan. dabcan areadan waxa weeye gobolka waqooyi galbeed oo markaa ingiriisku alaalaxayn fara badan ka sameeyay xagga xayawaanka. dabcan haddaad usoo gudubto dhinaca ciidanka, waxa weeye halkan ciidanka markaa burco laga keenay oo markaa wadaamagoo sii jiidaya madaafiicda, oo markaa loo sii wada ama kusii jeeda gobolka Sool. sidaas lamida waxa weeye ciidamadii ilaalooska la dhihi jiray oo markaa ingiriisku uga shaqeynayay gobolada waqooyi galbeed ee dhulka Soomaaliyeed. ayaan daro sidaas leeg waxa weeye halkan waa militariga ingiriiska oo markaa ayer oo magaciisa la dhaho Jack ay awrta ku rareen si aygaas uu raad raacdeeyo ciidamada daraawiishta hadba meeshay mareen. marka sidoo kale haddii ayga wadan waatay wadan jireen dad horgalla oo markaa sheegay ingiriiska taageerayay, oo dabcan waxa sheegay ahaa kuwii markaa iyagu dawga tusayay ingiriiska haddana ayga la wadan. sidoo kale waxa weeye dadkii markaa ingiriiska la socday awrta uu ingiriisku soo rartay u waraabin jiray. sidaas si leeg waxa weeye dadkii ingiriiska iyaguna la socon jiray oo markaa sheegay xaabada usoo guri jiray marka ay cuntada karsanayaan. waa arkaysaa rag Soomaaliyeed xaabo goraya. marka dabcan aydaas waxay kala tusayaan jidka ayay tusayaan askarta militariga oo raadkii daraawiishta meesha ka tageen. haddaan ayda la wadinna waxaa la socon jiray dad Soomaaliyeed oo markaa waata halkii daraawiishta ku maahmaaheen nimankan oo kale oo Soomaaliya, oo markaa la dhihi jiray ilaalooska amba ciidamada tusayay dawga, oo markaa waatay daraawiishta ugu maahmaaheen ingiriis ay waday ama si door waday. calaashaan iga raali lahada waa laga yaabaa inay xanaf yara leedahay, laakiin si magaranaysa haddaan aygu jidka tusayn rag Soomaaliyeed ayaa jidka tusaya ingiriiska. taasuna waxay ahayd magaranaysa taariikh gaaban oo aan kaga hadlayay cidda daraawiishahay. dabcan deegaanadii lagu duulayay waxay ahayd deegaano fara badan oo gobolada waqooyi bariya, oo markaa ingiriisku doonayay inuu ka geysto duqeyn. dabcan Bullaxaar waxa weeye magaalada berbera dhinacan ka xigta berbera, iyadoo halkaa dad badan lagu magaranayay dulmiyey oo ingiriisku psychological magaranaysa gumaysiga uu samaystay. dabcan deegaanadii lagu duulayeen oo gobolada waqooyi bari waa iska garanaysaan Sool iyo gobolka Nugaal iyo Sanaag, oo markaa duqeymo fara badan iyagana uu ka geystay. iyagana idin tusi doono bal wixii uu geystay iyagana iyo sida loo duqeeyay insha Allah.